qofka quraanka xifdiyay kadibna ku dhaqmay dhaqankiiba muhiima amalki jazaan bima kanu ya'malun amal falba ilaahi jalla wa ala inaga doonaya tilka aljanna allati urithumuha bima kuntum ta'malun amal ba jannada lagu dhaxlaya amalki wixii quraanku ahkaam lahaana qofka ku dhaqmayba sayyidina abdullah ibn abbas uu leeyahay la yadillu fi dunya adduunyada kuma dhaxlumayo wala yashqa fi al-aakhirah aakhirana ma gul daraysanayo nabigeena alayhi salatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay xadiis abi umama fi sahih muslim radiyallahu anhu wuxuu nabigu alayhi salatu wasalaam uu leeyahay iqra'u al-qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi quraanka akhriya oo ka warhaya oo la noolaada banka qiyaamo wuxuu imanaya isagoo shafaaca qaaday yashfa'u li ashabihi li ahlihi liman yaqra'uhu kathiran wa ya'malu bihi qofkii quraanka la noola quraanku waa shafaaca qaadaya shafaacada quraankuna waa shaafi'un mushaffa' wa maahilun musaddaq dib loo celin maayo nabigeenu alayhi salatu wasalaam ahadiith badan buu inoogu boorinaya inaynu quraanka la noolaano in quraanka lagu tadabburo ilaahi jalla wa ala wuxuu soo dajiyay in la fahmo in qalbiyada loo furo qabla al-aadhan dhagaha ka hor in qalbiyada la furo afala yatadabbaruna al-qur'an am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna al-qur'an walau kana min 'indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afalam yadabbaru al-qawla am ja'ahum ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون حقيقة هذا البلان كما تلقلين ومرة دي أبوان ذي علوم ذي بوضها اللين إيش أبوانك عبد الواحد فرديو عباس وحضل أمياله علوم ذي بعد دميي أبوان ذي بعد دميي انت أيني تساليين وإناد كل قنتان إناد قادتان قرآن بالينسيي والدين تاس فردياء أمهاتك بركيسا إله جل وعلا كأجر سيو والدك وحكود داله وحاو قيمة بدن هديبا تيسي تماده هديبا قبر الله دعوه هديبا الديادة لغا السفره وحاو ناكسان إناد كتكتد قف متدينة قف دين لي قف قرآن حنبارسا قف أهل علمية وإله جل وعلا كأمر قادني وكوسو دعيني أو ولد صالح يدعو له وصدح ذا عمل أن آخر قوئين حتى في القبر أن قوئين إنه قبرك قفك أجر كيس أصعني سيد النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام والذين تو بركيسيهين هنيئا لهم ولجهدهم جهد قوغاسي بركيسيهين وحل مال قشده إنسان باوقو قالسا أرديدنا وحكولة دردار مياه من ظلم شبابه ستظلمه شيخوخته وحيورن جيران ددكي هore qofka dhalinyarnimadiisa dulmiya gabowgiisa dulmin doona qofka dhalinyarnimada intuu leeyahay intuu xoogahay intuu aqligahay intuu kartidahay intuu xubnihiisu dhamayska tiran yihiin inta indhihiisu meel dheer wax ka arkayaan meel dheer u socon karay meel dheer wax intuu dhalinyarta yahay qofka dhalinyarnimadiisa dulmiya satadlimuhu shaykhukhatuhu gabowgiisa ayaa isagana dulmin doona markuu weynaado markuu daalo oo magaranaysa indhihiisi araggi gaabto maqalkii soo ururo xubnihiisa ay jilcaan gabowgiisa ayaa dulmin doona xilligaas uu daalaya marka cilmiga la baranayo yutlabu al-ilmu bidhulli la 'izza fi waxa lagu bartaa dhulli aan 'izzi ku dhex jirin markaad baranaysid وداليسا وتصوك الله يسا والوجوه جبية ده الوجوه عسينية ومرك قار واتسكا جامبا فدقا بكوديبي وحبضن بعد فهم واي ولكن وحاكودا بين بعز لا ذل في عز أن ذل اللهين إن شاء الله تعالى إله جل وعلا هنا بركة دمان با دعون بعد دمان هذا الله دم ولا دم يستري نك والد وحارد هذا لقيا با إن يرى فهم ويان مرك والد في الصباح والبصاق اللي هنا يو أبيه دين عتاجن يهوي دين عتاجن إن سلا مدرسة وقتك كل يراضو معلمين تيجي مقرن يسا إنه قفك يسرادو نيم حكاية عدي بيان ما لسك كاسيداي وحقا واحد يرجع على إذا مرك ورا القرآن كل وير تري هذا دم يسام به إن ملاها الله يسكير في الفردية ووقت بدنا نسكيه شانه ووالدك وحلاقيه مرك وفان تدبا إنه عدو جاي يحي oo waxana lagu gudaalinayo lagu dilayo dhaxan oo dhacayso lagu kalihinayo inaadan wax badan ka fahmin ayaa dhacda waani jirta waagan anagu maraan quraanka baranaynay ayaa 7 jir baan ahaayo arday kale isaguna daadaas naga agdhow baan boarding baan ku dhiganayn madrasada waa rawxaad Soomaa iyagu de guriyihiina laxooga ka soo cunaysan hawshiin way si saarantahay naku boarding baan iska ahayno
anwaar iyo khayr badanna waa lagu hayay tadxiyo badanna boardingku waa leeyahay markaasa ardiba uu baxsaday wuxuu ka baxsaday madrasadii aabihii baa soo qabtay markaa barqadii baa la soo qabtay wiilka waan garanay aabihina waan garanay isku arday baanu hay markii la soo qabtay isaguna igama da'weyno oo adigu 8-7 wax saasun baanu ka wada agdhownahay mar allah markii macallinka loo dhiibay macallinkii aad buu u dilay subax barqadii oo dhan baa la casaynay duhurkii buu markaa igu soo ag tukaday isagoo hirraagayo indhuhu casaadeen oo ma garanaysaa aad iyo aad loo soo dilay markii duhurka laga baxay baa laba xadiis la noo akhriyay xadiisayn baa duhurka kadib ardayda loo akhrin jiro marka macallin baa noo akhrinay macallimiinta kamid xadiiskan buu akhriyay sheekh mubaarak uu hadda akhrinay nabiga kaleey salaatu wasalaam markii la weydiiyay man haqqu an-naasi bi husni sahabati dad yaa ugu mudan inaan la heshiiyo inaan ka ag dhawaado sida ugu wanaagsan oo la dhaqmo nabigu wuxuu ugu horeysiyay ummuka hooya ugu horeysay haddana hooya ku xigta haddana hooy 3 jeer baa nabiga su'aasha la weydiiyay mar walba wuxuu ku jawaabayay mudnaanta koobaad mudnaanta labaad iyo ta saddexaad bay iska leh wariya iska leh hooyada iska leh markii afaraad baa uu nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri thumma abuka haddana aabaha ardaygii baa intuu say gujiyay ayaa wuxuu yiri wariya Abbas ha wuxuu nabigu aabaha afaraad u geeyay miyaad garanaysaa san ku dhimay inuu cadow yahay buu ogaa buu yiri inuu cadow yahay ayuu ogaa la abiiba saaga soo qabto ma garanaysaa u shan iyo waxaan abiiba saaga soo figeeyay marka wuxuu waxa afaraad aabaha looga dhigay inuu cadow yahay ogaa nabiga sallallahu alayhi wasallam marka iska waxa ka hayduun aqli darra iyo waxa naga ahayduun muxuu ahaa cadad iyo ushi marka khayr badan ma inii rajaynaya ilaahina barakeeyo hada wa sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammad